Jawxo howlgal ballaaran ka wada gobolka Jarar waxaa meel fiican maraya howlgal ballaaran oo wafdi culus oo ka tirsan xisbiga Wanalef uu ka wada gobolka Jarar ee dhulka Ogaadeniya. Wafdiga oo isugu jira musharaxiinta xisbiga Wanalef ee gobolka iyo kaadirka Jawxo ayaa howlgalkooda ka bilaabay degmada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka, iyagoo kulamo waaweyn la yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada. Sidoo kale wafdiga ayaa howlgal ballaaran oo ay qaadeen ku maray qaar ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmooyinka Dhagaxbuur iyo Awaare, kuwaas oo kala ah Dhogor, Jiir, Qubi, Falfal, Biyo Guduud, Dhagaxtuur, Dusmo, Meersane, Madheedhle, Bukudhawa iyo Gurdumi. Wafdiga ayaa tuulooyinka ay socdaalka ku mareen kala kulmay soo dhoweyn la yaab leh, iyagoo shacabku ay u muujiyeen dareen wadaniyadeed. Sidoo kale wafdiga ayaa kulamo la yeeshay bulshada ku dhaqan degmada Awaare, halkaas oo shaqooyin midho dhal ah ay ka qabsoomeen, wafdiga iyo shacabkuna ay ku ballameen. Wafdiga ayaa u jahaystay dhinaca Haradigeed, waxayna socdaalka Haradigeed ka bilaabeen tuulada Guracan oo ka tirsan degmada Dig ee xarunta Haradigeed. Wafdiga oo caawa halkaas ku sugan ayaa ka jawaabaya dalab ka yimid dhinaca shacabka, kaas oo ahaa in ay muddo halkaas ku hakadaan wafdigu si ay iyaga iyo dadka deegaanku isu urxaadhaan. Wafdiga ayaa haddii alla idmo socdaal ku mari doona tuulooyinka degmada Dig hoostaga, iyagoo uga sii gudbi doona degmada Gunagada ee isla gobolka Jarar. Sidoo kale wafdiga ayaa qorsheynaya in ay socdaal ku maraan deegaanada dhiman ee gobolka hadba inta ay ka gaadhaan. Wixii ka soo kordha socdaalka wafdiga Jawxo ee gobolka Jarar kala soco wakaalada wararka Ogaadeniya.